السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوادا قيبتي استحادة تعانيه بقرتوية درواقة. diiriya markii uu ayaamo bohoshii ku jiray waxaa ka baaday baqdintii faraha badneed ee haysay waxaanuu bilaabay cunidda hilibkii qaydhinka ahaa laakiin marnaba looma oggolaan inuu dibadda u baxo oo waxa isaga la sii saaray ilaalo u gaar ah haddiise uu muddo u joogay waa koray oo waxauu si fiican u bartay afkii dhurwaaga kadib waxaa loo bilaabay tababar ku aadan ugaadhsiga waxaana lagu daray xayn kale oo dhurwaaye ah oo qaybay isaga ilaalo ka hayaan qayb kalena ay barayaan sida xoolaha loo qaado markaas kadib waxay bilaabeen inay keligii diraan marmar waxaase la yaab ku noqotay dadkii deegaanka ahaa durwaa xoolo qaadanaya oo sidii dadka oo kale ooda isaga guraya haddiise raadka la fiirshana mid aadama u eg degsiimooyinkii oo dhan baa isu sheegay ceelasha marka xoolaha la soo aroorinayo bay arrintii hadalhaynteedii ku badatay waxaase sii darnayd haddii uu qaado neef riman waa u dhigaya isagoon waxba gaadhsiin diiriye hooyadii mar qoran iyadiisa kamuu bixin inkastoy maalmo badan raadiyeen laakiin raqdiisii iyo ruuxdiisii midna way heli waayeen reerku way ka guureen aaggii ay degganaayeen hase ahaatee waxay soo noqdeen xilligii guga oo meeshu waxay lahayd xurfado biyo qabatin leh diiriya dhankiisa waxa uu ku tababartay dabeecado badan ay dhurwaayadu lahaayeen hase ahaatee waa adoon uu waxyaabo badan ayuu kaga duwan yahay dushiisa intii badnayd waxaa ka soo baxday dhogor dharqaadashadiina ma jirto ciddiyuhuna waxay noqdeen kuwo aad u dhaadheer oo adag waxa uu yeeshay tuur maadaama uu dheeraaday waraabayaasha uu la degan yahayna aanu qofku taagnaan ku dhex joogi karin hadalka aadamahana ku hadlidiisii ma karo balse wuu fahmayaa waxay noloshiisii sidaas ku jirtaba waxuu habeenkii dambe sidii caadada ahayd isaga iyo saaxiibbadii dul yimaadeen reer markaas xoolihii xaraystay reerku waxay ka sheekaynayeen in aagga aad looga hadalhayo dhurwaa cagdad leh oo inta uu sidii aadamaha oo kale xerada iska faydo neefka rimanna ka leexanaya markaas diiriye iyo saaxiibbadii reerka kama foga waanay fahmeen in iyaga la hadalhayo haddii uu diiriye hadalkiisii dhegaystay waxa uu gartay codka islaan weyn waa hooyadii dayaxo waxaanuu fahmay inuu reerku yahay qoyskii uu ka dhashay habeenkaas waxaa hadba reerka lagu gaafareegaba waxaa hadba gees laga istaagaba diiriyana ka ilaalinaya inay reerka xoolo ka qaadaan waxay go'aan ku gaadheen in laga tago oo meelo kale laga ugaadhsado markuu ugaadhsigii soo idlaaday kooxdii isla socotay waxay ku laabteen xaruntii boqortooyada diiriye isaga waxa si gaara ula soo daristay xaalad cusub oo waxa uu soo ogaaday qoyskii uu ka dhashay hase ahaatee maalin ma bixi karo oo waxa uu ka baqayaa in la arko islamarkaana la dilo sidaas ayaanu uga mid noqday waraabayaashii